بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what is a discount rate bangiga dhexe ee wadanka waxa uu adeegsadaa walxo kala duwan si uu u xakameeyo dulsaarka iyo lacagta ku wareegaysa suuqa balse waxa uu awood badan saddexdan aaladood kow reserve requirement labo open market operations saddex discount rate hadda koor ayaan ka soo hadalnay kow iyo labo oo ah reserve requirement iyo open market operations waxaadna ka heli kartaa lifaaqa hoose qeexidan waxaan kaga hadlaynaa qaybta saddexaad oo ah discount rate haddaba discount rate waa dulsaarka bangiga dhexe uu ku deymiyo lacag bangiyada ganacsiga ah ama bangiyada kale ee lacagta u baahan si ay ugu daboolaan baahidooda maaliyadeed discount rate waa saadaaliye muhiim u ah xaaladda dhaqaale ee wadanka uu wajahayo waayo isbeddelka ku imaanaya dulsaarka ayaa caddaynaya haddii uu wadanka ku jiro kobac ama hoos u dhac dhaqaale oo dulsaarka haddii uu hooseeyo ama haddii uu sarreeyo haddaba marka bangiga dhexe uu rabo inuu xakameeyo lacagta ku wareegaysa suuqa iyada oo la adeegsanayo aaladda discount rate waxaa la dabaqaa labadan qaab oo ah tight ama easy money policy haddaan ka hormarno tight money policy oo ah tilaabo lagu yaraynayo lacagta ku wareegaysa suuqa haddaba si ay taas u dhacdo bangiga dhexe waxa uu sare u qaadaa dulsaarka uu lacagta ku deyminayo bangiyada kale midaas ayaa keenaysa in bangiyadan aanay lacag badan deynsan oo haddii ay deynsadaan ay ku deynsanayaan lacag qaali haddaba bangiyada dhankooda sare ayay u qaadayaan dulsaarka ay lacagta ku deyminayaan macaamiisha midaas ayaa ka dhalanaysa in dadka ay yareeyaan lacagta ay deynsanayaan oo ay badiyaan inay lacagta kaydsadaan sidoo kale midaas ayaa keenaysa in lacagta ku wareegaysa suuqa ay yaraato dhaqaalaha wadankana hoos ayuu u dhacayaa dowladdana waxa ay tilaabada u qaadaa si ay u yarayso sicir bararka ka jira wadanka markana aan ka hadalno easy money policy oo liddi ku ah midii hore tilaabadan waxa uu bangiga dhexe u qaadaa si uu sare ugu qaado ama uu u kordhiyo lacagta ku wareegaysa suuqa haddaba si middaa loo gaaro bangiga dhexe waxa uu markan hoos u dhigayaa dulsaarka uu lacagta ku deyminayo bangiyada midaas ayaa keenaysa in bangiyada ay soo deynsan karaan lacag badan oo ayna hoos u dhigaan dulsaarka ay lacagta kusii deyminayaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka waxa ayna keenaysaa in lacagta ku wareegaysa suuqa ay sare aado oo ay maalgashatada sameeyaan mashaariic cusub sarena loogu qaado dhaqaalaha wadanka xog dheeraada oo ku saabsan bangiga dhexe reserve requirement open market operations commercial banks fadlan ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo